bismillaahi raxmaani raxiim. habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada qodobada warka idaacadda kulmiya caawa kuwooda ugu doorka roon. gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir oo xilkii laga qaaday iyo kuwo cusub oo la magacaabay. qof isa soo miidaamiyey oo caawa isku qarxiyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari. madaxweynaha soomaaliya oo khudbad ka horjeediyey baarlamaanka waddanka jabuuti. doon laga leeyahay waddanka iiraan oo lagu afduubtay xeebaha deegaanka xaaba ee gobolka bari. wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha oo dalbatay in baaritaan lagu sameeyey falkii lagu rasaasiyey ciyaartooyda kooxda elman. kulan lagu taageeray ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo maanta lagu qabtay muqdisho. wasiirka maaliyadda oo sheegay in dhaqaalaha ka soo xarooda dekedda muqdisho qiimo koror uu ku yimid. hormuud telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. hormuud telecom u doono internet xawaarihiisu sarreeyo. adna qaado hormuud saaxiibkaana u qaad. waa habeennimo talaado ah, arbaca ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay 23 bisha shanaad sanada 2017. inta aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door garoonaa. isagoo faahfaahsan caawa waxaa la diyaaraa waryaheena cabdiwahaab xuseen muxudiin. aad baad u mahadsan tahay maxamed xasan qays. bismillaahi raxmaani raxiim. habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada warkii oo fidsan. gudoomiyaashii degmooyinka gobolka banaadir ayaa xilalkii laga qaaday, iyadoona caawa kuwo kale la magacaabay marka laga reebo degmooyinka kaxda iyo heliwaa. haddaba wariyaheena xuseen cabdulle maxamed oo arrimahaasi isha ku hayay ayaa hadda istuudiya igula sugan. xuseen, habeen wanaagsan. waxaad ka warbixisaa qaabka gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir xilka qaadistooda ay markaasi caawa u dhacday iyo kuwa kale ee la magacaabay. waa mahadsanta cabdiwahaab. waa un intii aad sheegtay gudoomiyaashii degmooyinka gobolka banaadir ayaa caawa waxaa lagu dhawaaqay in si rasmi ah xilka looga qaaday 15 ka mid a, halkii ay dib usoo laabteen 2 gudoomiye oo hore xilkan u haysay. wareegto ka soo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdi faarax siciid juxa oo tala uu ku lahaa ama tala soo jeedin ahayd gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho taabit ayaa xilkii laga qaaday 15 gudoomiye, waxaana la magacaabay 15 gudoomiye kale oo cusub, iyadoo ay dib usoo noqdeen gudoomiyaasha degmooyinka kaxda iyo hurwaa ee gobolka banaadir. wareegtada waxaa wariyaasha u akhriyay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabditax cumar xalane, waxauna sheegay in gudoomiyuhu maamulka gobolka banaadir oo talo ku jeediyey in xilka laga qaado 15 gudoomiye oo 15 kalena lasoo magacaabo. sidoo kalena dadka la magacaabay waxaa ku jira gudoomiyihii degmada dharkenley oo isagana mar kale loo celiyay degmada kaaraan oo markii hore laga soo wareejiyey. inkastoo xilkan hore uu hayay, wuxuu haddana ka mid yahay 3 qof ee soo laabatay ayuu ka mid noqonaya. dadka la magacaabay waxaa ku jirta 5 qof oo dumar ah oo gudoomiyaasha markii ugu horeysay ka mid noqonaya. may dhicin weli in 5 gudoomiye degmo gobolka banaadir hal xilli ay dhacdo oo dumar ah. marka sida dhegeystayaasheennaba ay fariimaha u dhacay qaar ka mid ay ku arkeen, gudoomiyaashii caawa waa la bedelay. 14 ka mid ayaa xilka laga qaaday, waxaana la magacaabay 14 cusub. 3na dib usoo laabatay oo gudoomiye degmada dharkenley oo loo wareejiyey kaaraan. gudoomiye degmada hurwaa weli xilkiisiibuu hayaa. gudoomiye degmada kaxdana xilkii waa cabditax cumar xalane ayaa ku dhawaaqaya magacyada gudoomiyaasha xilka laga qaaday iyo kuwa la soo celiyey. waxaan rabaa inaan akhriyo dekretooyinkii xilka qaadista gudoomiyeyaashii degmooyinka gobolka banaadir oo la bedelay lana magacaabay gudoomiyaal cusub. warqadda ugu horeysa, gudoomiyaha degmada warta nabadda waxaa loo magacaabay marwo zayna maxamuud warsame. xilkaasna waxaa laga qaaday mudane yaasiin nuur ciise. gudoomiyaha degmada waa beri waxaa loo magacaabay marwo rawda cabdullaahi colaad. xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane xuseen axmed culusow. sidoo kale gudoomiyaha degmada shangaani waxaa loo magacaabay marwo basma cumar axmed. xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir. gudoomiyaha degmada shibis waxaa loo magacaabay marwo safiya sheekh cali jimcaale. xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay walaalkay mudane axmed muumin maxamed. sidoo kale gudoomiyaha degmada boondheere waxaa loo magacaabay marwo zaynab yuusuf weliye.
xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay gudoomiye qaasin cabdullaahi xasan dheere. gudoomiyaha degmada dharkeenley waxaa loo magacaabay walaalkay mudane cabdiraxmaan sayid cali xuseen. xilkaasna waxaa hore u hayay oo laga qaaday mudane cabdifataax nuur cali yaanyo. sidoo kale gudoomiyaha degmada hodan waxaa loo magacaabay mudane maxamed axmed maxamuud cantoobo. xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay axmed salaad ibraahim. sidoo kale gudoomiyaha degmada yakshiid waxaa loo magacaabay mudane axmed xasan maxamuud. xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane cusmaan maxamuud cadaawe. gudoomiyaha degmada wadajir waxaa loo magacaabay walaalkay cumar cabdulaahi xasan. xilkaasna waxaa hayay oo laga qaaday mudane axmed cabdulle afrax. gudoomiyaha degmada xamarweyne waxaa loo magacaabay cumar shariif maye. xilkaasna waxaa hore u hayay oo laga qaaday walaalkay siciid cabdulqaadir siciid. gudoomiyaha degmada xamar jajab waxaa loo magacaabay mudane cabdiweli cabdulaahi maxamed. xilkaasna waxaa hayay oo laga qaaday injineer axmed cusmaan dhoore. gudoomiyaha degmada kaaraan waxaa loo magacaabay walaalkay cabdifataax nuur cali yaanyo oo hadda ah gudoomiyaha degmada dharkeenley. waxaana xilkaas laga qaaday cumar mayre macow. waxaa xusid mudan cumar mayre iyo cabdifataax horay ayay degmada kaaraan ugu kala wareegeen oo cumar ayaa kala wareegay cabdifataax. gudoomiyaha degmada howlwadaag waxaa loo magacaabay mudane cabdikariin cali cabdi cali kaarwaaye. waxaana xilkaas laga qaaday oo hayay walaalkay ciise maxamuud buure. gudoomiyaha degmada cabdilcasiis waxaa loo magacaabay walaalkay sharmaake maxamed ladane. xilkaasna waxaa hayay oo laga qaaday cusmaan muxudiin cali cariif. gudoomiyaha degmada dayniile waxaa loo magacaabay cabdiweli nuur faarax ayaa loo magacaabay. xilkaasna waxaa hayay oo laga qaaday mudane axmed nuur cabdi siyaad. halkaas ayay ku dhan yihiin xilka qaadistii 15 gudoomiye ee caawa xilka laga qaaday lana magacaabay 15 gudoomiye. cabdifataax cumar xalane ayuu kaasi ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir. marka ilaa xilligan waxaa xarunta gobolka jooga suxufiyiin waxaana dhegeystayaasheena u ballan qaadaynaa inay heli doonaan magacyada oo dhammaystiran oo aan halkan uga akhrin doono. sida aan kuu sheegayna cabdiwahaab 5 qof oo dumar ayaa gudoomiyaasha ku jira. gudoomiyaasha dumarka gudoomiyaha u noqday ee hogaamin doonaanna waxaa ka mid ah degmada wardhiigley oo ay warta nabadda loo yaqaano. gabar la yidhahdo Saynab ayaa gudoomiye looga dhigay. degmada la yidhaahdo waa berina waxaa gudoomiye ka noqonaysa Rawda. gudoomiyaha degmada Shangaani waxaa noqotay qof dumara oo iyadan la yidhaahdo Basma. Safiyo Sheekh haweeney la yidhaahdo iyadana waxay noqonaysaa degmada Shibis. Saynab Yuusuf Wehliye iyadana waxay noqonaysaa gudoomiyaha degmada Boondheere. marka 5taas qof oo dumarka ah ayaa ku jira 15 gudoomiye ee maanta ama caawa lagu dhawaaqay. halka 10 kalena ay yihiin rag. laba ka mid ahayna waxay dib u soo laabteen degmooyinkoodii. halka gudoomiyaha degmada dharkeenleyna loo wareejiyay degmadii markii hore oo ku magacaawna ee Kaaraan oo laga soo wareejiyay. aad buu u mahadsan yahay dhagaystayaalkaasi waxaa wariyeena Xuseen Cabdulle Maxamed oo xogtii ugu dambeeyay ee qaabka caawa ay u dhacday xilka qaadista qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyadoona caawa inta badan gudoomiyaashaasi xilalkii la qaaday kuwa kalena la magacaabay. qof soo xirtay waxyaabaha qarxa ayaa caawa waxa uu isku qarxiyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. wariyeena Cumar Maxamed Soomane ayaa goordhow Maxamed Xasan Qays oo warka soo saaray u waramay. wararkii
wararkii ugu dambeeyey idaacadda kulmiye ay ka helayso magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxay sheegayaan in inta la xaqiijiyay 4 qof oo mid kamid ah raggii isqarxiyay kamid ahaa uu ku geeriyooday qarax la sheegay inuu ismiidaamin yahay oo salaadii maqribka kadib caawa ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xiriiro kala duwan oo aan la sameeyay dad goobjoogayaal oo ku sugan magaalada Boosaaso waxay idaacadda kulmiye ay u xaqiijiyeen in qaraxaasi uu ahaa mid ismiidaamin ah isla markaana si toos ah la bartilmaameedsaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada amniga Puntland oo bar control ku leh bartamaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari saddex kamid ah dadka shacabka ah oo mid kamid ah askari uu yahay labana dad shacab ay yihiin ayaa lagu soo waramayaa iyaguna inay ku dhaawacmeen qaraxaasi kuwaasoo iminka lagu daweynayo isbitaalka guud magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ma jirto ilaahay iminka cid si gaar ah u sheegatay qaraxa ismiidaaminta ah ee caawa ka dhacay magaalada Boosaaso balse markii dhacdada ay dhacday kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamada amniga Puntland oo bilaabay howlgallo ay ku adkeynayaan amniga goobta uu qaraxa ka dhacay mana jirto ilaahay iminka qof mas'uul ah oo ka tirsan maamulka Puntland oo ka hadlay weerarka ismiidaaminta ah oo caawa ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa khudbad waxa uu maanta ka horjeeday baarlamaanka waddanka Jabuuti kadib markii uu halkaasi gaaray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta gaaray magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Jabuuti soo dhaweyn kadib madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbad ka horjeeday baarlamaanka waddanka Jabuuti waxaana uu dowladda Jabuuti uga mahad celiyay sida walaaltinimada leh ee Soomaaliya ay u garab taagan tahay waxaan idin sheegayaa in aanaynan gurigii labaad dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed uu yahay shacab waalihiin ah gurigiina aad garab taagneedeen oo aad gacan siinayseen laga soo bilaabo dowladda kumeelgaarka ahayd ee lagu dhisay halkan ee cartan lagu dhisay oo ay ka dhalatay dowladda ugu horeysay kumeelgaarka ah markii labaadna aydan ka quusan markii wax naga yar halaabeen oo aad halkan isugu yeerteen dib u heshiisiinta aad ka samayseen oo aad ka culiseen dowladda labaad oo kumeelgaarka ahayd intaasoo idinna aad garab taagneedeen dadka Soomaalida ah oo waalihiina oo runtii dhibaataysan oo soo maray marxalado adag oo kala duwan waxaan idin sheegayaa anigoo mathalaya shacabka Soomaaliyeed inaan ka hayno mahad ballaaran iyo abaal weyn waxaan idin leeyahay Soomaaliya waa gacan qabateen waa garab taagteen dhinac walbaba waxa ugu dambeeyay hadda markaa ka soo qayb gasheen ciidanka AMISOM oo ciidankii loo yaqaano hiil walaal uu ka duwan yahay ciidamada kale bacdama uu bixiyay hiil walaal inkastoo walaalahayna kale AMISOM ka ah naftigoodu ay dhiigoodii iyo naftooda loo hurayaan haddana idinku dadku waxay idin arkaan inaad ka mid tihiin taasaa waxay keentay dadku inay idin yaqaanaan hiil walaal waxaan ka tacsiyanayaa dadkii ku dhintay halkaas oo iyagoo Soomaaliya gacan ka siinaya inay Soomaaliya dib u soo noqoto qoladan horarka ah oo shabaabka oo dhibka badan iyagoo ka difaacay shacabka Soomaaliya halkaas ku nafwaayeen waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya weligood doonayay dadkaasi naftooda u huray Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isna halkaasi saxaafadda kula hadlay waxaana uu sheegay in madaxda ciidanka iyo shacabka Jabuuti ay mar waliba garab taagan yihiin Soomaaliya waxaana uu intaasi raaciyay in ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ay diyaar u yihiin in mar waliba ay Soomaaliya ka caawiyaan sidii amni buuxa u heli lahayd sida waxbaan isku yara darnay haddii reer Jabuuti aan nahay maxaa yeelay dadka iyagii waanu tagnay waxa aan jeclaanay in waajibkeenu uunan caskari uunan noqon keligiis waxaan jeclaanay in aan dadweynaha iyo ciidanka Soomaaliyeed aan isku soo dhaweyno oo aan dhexdhexaadin haddii loo baahan yahay aan ka odayeyno marka loo baahan yahay aan gargaar wixii aan u fidin karno dadweynaha haddii uu fatahaad timaado haddii magaaladiisa ay dhalinta aan qalab ay ku rafaahiyaad ku sameeyaan aan helno yani dadweynihii iyo ummadii iyo ciidankeedii inaan isku soo dhaweyno caadiyan ay tahay ama sida uu talagalku yahay 2018 iyay nagaga dhantahay wadaniyiin haddii birs la yidhahdana waa meelinayna laakiin jawharadu waxa weeyaan in Soomaaliya loo sameeyo ciidan kara awoodi kara in uu wadanka xanan karo nabadgelyadiisa iyo difaaciisa
dowladaha jabuuti iyo soomaaliya ayaa xiriir wanaagsan ka dhexeeya iyadoona madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geele uu kasoo qayb galay xafladii lagu caleema saarayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa dalbatay in baaritaan lagu sameeyo falkii lagu rasaasiyey ciyaartooyda kooxda elmaan. wariyeena maxamed nuur shuuriye ayaa warkan faahfaahinay. shalay gabaldhici ayaa ahayd markii la rasaaseeyey gari ay la socdeen ciyaartooy iyo macallimiin kubadda cagta waxay xilligaasi ka soo laabteen kulan saaxiibtinimo ay ku ciyaarayeen deegaanka ceelasha biyaha waxayna dib ugu laabanayeen degmada afgooyo oo ay markii hore ka yimaadeen waxaana dhacdadan murugada leh ay la kulmeen markii ay marayeen deegaanka calamada waxaa geeriyooday allaha u naxariistay tababare ku-xigeenkii naadiga bariga dhexe macallin yuusuf xeedar iyadoo ay dhaawacyo daran la kulmeen labada xidige kuwaasoo kale ah cumar muumin daahir zimbabwe iyo cabdulaahi maxamed axmed mayow iyadoo dhaawacooda lasoo gaarsiiyey magaalada muqdisho. wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriya ayaa shir jaraa'id ay qabatay waxay kaga hadashay rasaasta lagu furay xubnahan kubadda cagta soomaaliya ka tirsan. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. sida la wada ogsoon yahay falkii argagixisada arxanlaawayaashu ay u geysteen shalay baabuurka caasiga ah oo ay saarnaayeen koox ciyaartooy soomaaliyeed ah iyo shacab soomaaliyeed oo isku jira ay rasaas ku fureen waxaana ku geeriyooday macallinka labaad ee kooxda bariga dhexe oo ka tirsan degmada afgooye magaciisana waxaa la yidhaahdaa marxuumka yuusuf cali xaydar oo ahaa macallinkii labaad ee kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe. isaga waxaan leenahay ugu horeyn allaha u naxariisto ilaahay annagana gadaashiis nama fidneeyo. sidoo kale waxaa ku dhaawacmay cumar muumin daahir cumar zimbabwe iyo cabdulaahi mayow oo ka tirsan ciyaartooyda yaryar ee u diiwaan gashan kooxda kubadda cagta ee elman. kooxda elman ayaa ka mida kooxaha loo saadaalinaya xagaagan hanashada horyaalka kubadda cagta soomaaliya waxaana saameyn ku yeelan doona ciyaaraheeda soo aadan xidigaha ka dhaawacmay ee kala ah cumar muumin daahir zimbabwe iyo cabdulaahi maxamed axmed mayow. doon laga leeyahay waddanka iiraan ayaa laga afduubtay xeebaha deegaanka xaabo ee gobolka bari. wariyaane maxamed xasan qays ayaa faahfaahinaya warkan. wararka ka imanaya deegaanka xaabo ee gobolka bari ayaa sheegaya in kooxo burcadbadeed soomaali ah ay doon ka afduubteen deegaankaasi kuwaasoo aan la ogeyn ilaa iyo hadda halka ay la-adeen doonta inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay la-adeen xeebta deegaanka gardafuo ee gobolka bari. wararka ayaa intaa ku daraya in kooxdani ay doontaasi iyadoo mareysa xeebta deegaanka xaabo ay ka afduubteen inkastoo maalmihii u dambeeyey xeebaha dalkeena soomaaliya ay ka dhacayeen falal afduubya oo geysanayeen kooxo burcadbadeeda. dadka deegaanka oo ku sugan xaabo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in kooxdan ay la aadeen dhanka deegaanka gardafuo xeebaha ku yaala doontii ay afduubteen. doontaasi oo laga leeyahay dalka iiraan lamana oga ilaa iyo hadda sababaha ay u afduubteen inkastoo maalmihii u dambeeyay burcadbadeedu doonyo iyo maraakiib ay ka afduubanayeen xeebaha dalkeena soomaaliya. aad baad u mahadsan tahay maxamed xasan qays. guud ahaana dhegeystayaal warkii oad caawa kala socoteen keenan muqdisho soomaaliya waa naga intaa. ciddii warkeena uu seegana waxaay dib uga heli karaan beydadkaan internetka ku leenahay ee radio kulmiya .com iyo weheliya .com halka dhegeystayaasheena jooga maraykanka ay warkan kala socdeen radio kalay f m. dhegeystayaasheena jooga gobolka shabeellaha dhexe waxaa iyaguna si toosa inagala socdeen radio asal halka dhegeystayaasheena joogo gobolka galgaduud iyaguna warkaani kala socdeen radio cadaado. dhegeystayaasheena jooga magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug radio hobya ay nagala socdeen. caalamka intiisa kale ciddii joogta live streamka keenan ogaalase mase cidda u furan yaha teleefonkeeda gacanta ayaan ugu dirna ciddii aan loogu dirina durba ayaa loogu diri doonaa. intaan dib u kulmayno warkan war lacayno sidaa iyo nabadgelyo.